sare ee qaranka haatanna sida aad aragtaanba waxaa ku sugan dadkii loogu talagalay habmaamuuska iyo soo dhoweynta madaxweynaha jamhuuriyadda Jabuuti sidaad arkaysaan waxaa ku sugan ciidamadii loo diyaariyey inay salaan sharafta siiyaan labada madaxweyne iyo sidoo kale boqolaal ka mid ah bulshada caasimadda Muqdisho oo markaasi u diyaar ah inay ka qayb qaataan soo dhoweynta madaxweynaha dalka Jabuuti mudane Ismaaciil Cumar Geelle dadka halkan ku sugan oo soo dhoweynta u diyaarsanay waxaa ka mid ah kooxaha hidaha iyo dhaqanka ee qaybaha kala duwan ee kooxaha fanka sida kooxda hobolada qaranka ee Waaberi iyo kooxaha kale ee qaranka oo iyagu markaasi u diyaarsan inay ka qayb qaataan soo dhoweynta waxa ay wataan calamada labada dal iyo sidoo kale halku dhigyo ka turjumaya wada dhalashada iyo wax wada lahaanshaha labada shacab iyo labada dawladood ee walaalaha ah ee Soomaaliya iyo Jabuuti goordhow waxa halkan soo gaari doona madaxda sare ee qaranka oo ugu horeeyo madaxweynaha jamhuuriyadda mudane Xasan Sheekh Maxamuud si uu soo dhoweeyo dhigiisa dalka Jabuuti mudane Ismaaciil Cumar Geelle tabintan tooska ah waxaad kala socotaan guud ahaan warbaahinta Soomaaliyeed oo si toos ah u tabinaya dhacdadan taariikhiga ah ee lagu soo dhoweynayo madaxweynaha jamhuuriyadda Jabuuti mudane Ismaaciil Cumar Geelle waxaynu gaari doonaa gudaha si aynu halkaas uga soo tabinno dhacdooyinka ka socda isla markaana aynu u ogaano dareenka dadyooga kala duwan ee halkan yimid si ay u soo dhoweeyaan madaxweynaha Jabuuti la socosho wanaagsan ma dhaqaaqay joog hadda u diyaar garoobay inay si wada jiraan sharaf uga qaataan cutubiyada ka tirsan ciidanka xoogga dalka ee loo diyaariyey soo dhoweynta madaxda filada leef ka dhignaa filadana leef ka dhigna Soomaaliya fuaad soo kuma jiro
kuwa badanaa jooganiyo
Ayo.